markale Moscow ayaa isku dubaridaysa diyaarinta hanaan hawlgal oo gaar ah oo ka sii socon doona qaybo ka mid ah dalka colaaduhu hadda ay ka socdaan ee Ukraine. helitaanka gacan ku haynta gobolka Donbass waa yoolka wejiga labaad ee hawlgalka military ee gaarka ah ee Ruushka uu ka wada Ukraine ayaa laga soo xigtay taliyaha militariga ee dalka Ruushka isagoo ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen midowga warshadaha difaaca ee gobolka Sverdlovsk ee Ruushka. taliyaha ciidamada dhexe ee degmada Rustam ayaa sheegay in gacan ku haynta Donbass ay furi doonto marin dhulka ah oo ka yimaada Ruushka una gudbaya Crimea kaas oo la qabsaday sanadkii 2014 tan iyo bilowgii wejiga labaad ee hawlgalka gaarka ah 2 maalmood ka hor. mid ka mid ah hawlaha ciidamada Ruushka waa in ay si buuxda u maamulaan Donbass iyo koonfurta Ukraine ayuu yiri sargaalkan. waxa uu isbarbar dhigay dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo dagaalkii labaad ee adduunka isagoo sheegay in Ruushka uu la dagaalamayo caalamka oo dhan. hadda waxaan dagaal kula jirnaa adduunka oo dhan sidii uu ahaa dagaalkii weynaa ee wadaniyadda markii Yurub oo dhan iyo adduunka oo dhan ay naga soo horjeedeen. weligood ma ay jecleen Ruushka ayuu yiri isagoo intaas ku daray in isla dagaalka uu hadda socdo. hadafka waa la gaari doonaa hawlgalka gaarka ahna si guul leh ayaa loo gaari doonaa gunaanud macquul ah ayuuna ku dhammaan doonaa ayuu yiri. ugu yaraan 2345 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay dalka Ukraine. 2919 kalena waa lagu dhaawacay tan iyo markii uu dagaalku bilowday 24 Febraayo sida lagu sheegay qiyaasaha qaramada midoobe iyadoo tirada dhabta ah la rumaysan yahay inay intaas ka badan tahay. in ka badan 5 milyan oo dalka Ukraine u dhalatay ayaa u qaxay dalal kale iyadoo in ka badan 7.7 milyan oo kale ay ku barakaceen gudaha dalka Ukraine sida ay tiri hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobe.